tahay dhageystayaal wali erga ayaad nagala socotaan iminkana Cadaado. Magaalada Cadaado ayaa waxa ka soconaya qorshayaal loogu talagalay in lagu joojiyo qaadka oo la sheegay inuu kaga imaanayo dhanka Itoobiya si dhuumaalaysi ah sida ay sheegayaan dadka halkaasi ku sugan. Dadka deegaanka ayaa aaminsan qaadku inuu qayb ka noqon karo faafinta cudurkani. Haddaba wariyaha Radio Ergo Cismaan Madaale ayaa la kulmay isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee Galmudug ee magaalada Cadaado Cabdi Xasan Cali oo ugu horreeyna weydiiyay bal sida qorshahani uu yahay iyo waxay u diyaariyeen wuxuuna yiri طبعا anaga hadda intaan ognahay deegaanka aan joogno waxa muqaadaraadka ahi waa wax kooban waxa ugu horeeya qaadka ugu badan ugu saameyn badan waxaana ku xigo on maqlay maalmahan khamri fara badan ayaa deegaanka soo gala waxa kale jiro wax la dhaho taabuk oo tobaka nooc min tobaka ah oo iyadana la yiri waliba taas macnaha way ka qasii qatar badan tahay taabugu sababtoo waxa isticmaalay iyo dad aan barigii hore isticmaali jirin muqaadaraadka oo la yiraahdo sida ciyaalka iskuulka oo kala xataa oo rag iyo dumar bale ayaa isticmaalaa la dhahaa sigaarku waa la mid asay lafirkiisu xashiishada baasha la yiraahdo way jirtaa iyada lafirkeedu oo la dhuuqo dabka sidii sigaarka loo cabo waxyaabo noocaas ah ayaa jira laba marka dhibaato ayay leeyihiin dhibaato waa dhibaato caafimaad oo qofku markuu nafsiyan ama shakhsiyan uu isticmaalo naftiisa ku dhacaysa dhibaatana waa dhibaato ah cuduradan hadda la leeyahay COVID-19 ama coronavirus ee deegaanadan adduunyada oo dhan ka dilaacay waxa la yiraahdaa contact taabashada macnaha badeecadan muqaadaraadka ka samaysan marka la kala gedisanayo qofka gadaya qofka gadanaya qofka soo guraya qofka la wareegaya qofka safrinaya macnaha waxay tagaysaa xuduud ama distance dheer ayay maraysaa marka intaas oo dhan waxa laga yaabaa in uu ka dhaco waxa la yiraahdo transmission ama cudur qaadis ayuu keeni karaa oo sida badeecadihii kaleeto caadiga ahaa oo cuntadii iyo dharkii iyo bagaashkii sida loo xanimo kale waxa loo xanimay wax kala maahan isu socodkii faraha badnaa iyo safaradii duulimaadyadii badii waxa loo xanimay wax kala ma aha waxay tahay transmissionka in la yareeyo ama cudur qaadista ama cudur faafka in la dhimo haddii dhaqdhaqaaqa iyo dadka faraha badan oo shaqada qabanayo ay yaraadaan asagoo inuu yaraada laga yaabaa sida awgeed badeecadu dhinac ka shabaha oo macnaha wax la kala gadanayo umad badan isugu imaanayso absida ugu weyn sida loo yareey kara weydiisay sida loo yareey kara waa sida waxa waaye in la yareeyo safarada iyo isu socodka iyo isku imaatinka iyo waxaas oo markay yaraadaan isna uu yaraanaya hadii awal ka soo bixi jirtay 20 ama 30 ama 100 baabuur oo kale ay xuduudaha ka soo gali jirtay hadii hoos loo dhigo oo ilaa ama la joojiyaba waxa yaraanaya wixii cudur transmission ka dhalan lahaa coronavirus transmission wixii ka dhalan lahaa ayaa yaraanaya marka asaga wuxuu ku xiran yahay oo uu ka faa'iideysanaya populationka faraha badan ama crowdedka dadka isku imaatinka faraha badan ayay fursadiisu ku jirtaa cudurkan inuu faafo xog dhinacu ka imaada qaadkani uu magaaladan iyo deegaanada ku dhow uu ka soo galay in badan dadku ka cabtaan laakiin halka ma la ogiyo boqolkiiba boqol si fiican looma oga anu kulay waxaan filayaa xuduudaha waa saaminay degmada Cadaado ay la leedahay degmooyinka kale dhinacna waxay xuduud ka leedahay dhinacan dawladda Itoobiya qaybta Soomaalidu degto dhinacan Dacdheer iyo Galinsoor dhinaciisa xuduuda ku taala xuduudaas ma shaqeyn waayahan mana furayn wax soo socodana ma lahayn colaado iyo waxba ka jiray wax macnaha badeecadaha halka soo galay ma jiraan laakiin sida badan wuxuu ka soo galaa dhinaca degmada Caabudwa wajahadeedaas ay ka soo galaan badeecadahu ama badeeca caadi ha ahaato ama jaad ha ahaato meelaha ugu badan oo furan oo linkiska ama xiriirka ugu badan uu ka jiro waa degmada Caabudwa iyo ilaa iyo degmada Balambal inta u dhaxaysa aagaas ayaa aad uga furan dhinaca Itoobiya halkaasina naga soo gasha gaadiidka sida waxyaabaha kala duwan dadkan qaadka gadaya ma dhuumaalaysi ku gadaan mase meel public oo sidii hore qaadka gabarada lagu geey jiray ayuu xadiran yaala ka furay anigu intaan ka arkay waa public wax la qariyo ma ahan baabuurku laamigu soo istaagaa jaadka looga rogaa waa lagu qaybsadaa bartii kii hore lagu gadi jiraan lagu gadaa wax qarsoodiyo gooniyo hadda aan arkay
ma arkin iyo waxa macnaha kuwa ahba aad interest ugu ah inay celiyaan ama joojiyaan ama controlaan ma aragba marka dadkaas ma ku baraarugsan yihiin saameynta ka dhalan karta dadka ay ka gadayaan iyo iyaga nafsadoodaba ka soo gaari karta qaadkan dadka iibiyo gadaan ku baraarugsanaysa dabcan waa isku dhex jiraan la dhihi karaa qofna waa qof asagoo og falkan ku kacaya oo ay u geysay dan ayaa u geysay caruuru ka biili jiray guriyuu ka dhisi jiray ganacsigu ka sameyn jiray lacag ka soo gali jirtay qofka meeshii dhaqaale ka soo gali jirayna suu uga fuqa way adag tahay wax kasto ay tahayba qofna ma oga waxa laga yaabaa waxa ka soo galaaba inay iska yar yihiin laakiin khatartiisu ugu badan tahay dabcan dadka iibiya way ogaan karaan wayna garan karaan laakiin waxa si halis badan kan cunay ayaa ka sii halis badan marka maxaad looga hortagi karaa amisanta adiga oo arintan lagu hakii karo lagu joojin karo daily waxa la sameeyaa daily activity oo wacyigelin aan sameeynaa anaga ka degma ahaan maalin kasta waxaan sameeynaa maalin kasta waliba photo iyo report aan ka diyaarinaa inta rag iyo inta dumar ka soo qayb gashay number ahaan loo tiriyaa photo la qaadaa waa lagu training gareeyaa procedure-ka oo hand washing ka ayaa aad loo baraa si u faraxlan lahaayeen dadkan dad muslina waaye dad tukado waaye 5 jeer ayay tukadaan waxa lagu wacyigeliyaa 5 jeerba inay weysaystaan maaragtay sifadii weysaqaadkana oo dhammaystiran oo 100% hadduu sunno ahaa iyo hadduu faral ahaa intaba aysan ka tegin taasaaba waxay ku filan tahaba maaragtay wacyigelinta uga filan hadday aqbalaan insha Allah guriga ma diyaarsan ma nik meeyay ha meel gooniyo badan ah jiro goobo badan haysan anaga goob la'aan ma hayso isbitaal aan hadda maaragtay aad u shaqeynaa jira oo firaaqa waxa jira goobo waaweyn oo kulleejooyin iyo wax lagu talagalay jira anaga goobo waan haysanaa waxaan leenahay guddi ka kooban ururada bulshada dhammaan culimada odayaasha haweenka dhalinyarada ganacsatada saxaafadda ururka macnaha waaxda maamulka caafimaadka booliiska dhammaan ay ku wada jiraan waxbarashada ay ku wada jiraan guddi ah jiro wasaaradda caafimaadka heer degmo ay hagayso oo ay la wadaagayso heer gobol ilaa iyo heer state ay la wadaagayso insha Allah taala wixii ayagu ay dejiyaan ayaan fulinaynaa wixii bolisiga caafimaadka wasaaradda galmudug ay dejiso ayaan fulinaynaa anaga macnaha waxaan u sii diyaar garownay inaan arintaas ka qayb qaadano taasuna waxay u noqonaysaa dawladana waxay u noqonaysaa garab ay u noqonaysaa dadkana waxay u noqonaysaa dhiirigelin in dadku ay isu abaabulaan oo qolo waliba ay isu aawsho maadaama dalku uusan lahayn system iyo kayd ku filan uusan lahayn waa tahay dhageystayaalkaasi wuxuu ahaa isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee galmudug ee magaalada Cadaado oo u waramayay wariyaha Radio Ergo Cismaan Madaale.